بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. أيها الأحبة في الله، أحبكم في الله. كلمات دورة، إريات دورة، أراهيات دورة، أيان دونيا إنا لو ذاقو bulshada Soomaaliyeed ee meel walba adduunka kaga nool duruus iyo cashiro aan ka soo dhaxsaarayo dhacdadii social media maalmihii u dambeeyay qabsatay dhacdadaas oo ahayd gabadh 8 caruur dhashay oo 5 u nool yihiin saan rajaynayo oo sidii lagu ogaa ama loo ogaa uu nin qabay kadibna nin kala la soo baxday arintaas oo wareer aad u fara badan ka dhalisay social media iyo umuman ummadda Soomaaliyeed. maxaa xaqiiqo ah, maxaa dhab ah, say wax u jiraan taa anigu hadda ma gelayo, laakiin duruusta ku jirta baan doonayaa qof walba meel buu ummadda wax uga faa'iideeyaa ama zaawiyad yar ayuu qof walba wax ka arkaa oo isleeyahay zaawiyada ama darishadaas cashir baa ku jira ummadda looga faa'iideeyo. cashirka koobaad wuxuu yahay axaadiista nabiga aan ku hormaray sallallahu alayhi wasallam, quraanka iyo sunnada iyo culumadaba ay aad ugu adkeeyeen shartinta guurka waliga ila uu nabigu ka yiraahdo sallallahu alayhi wasallam ayyuma imra'atin nukihat bighayri idhni waliyaha فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قبل وللآن لم يهريا نكاح يدو صدح النبي كعليي صلى الله عليه وآله وسلم. محا شروط لو قدقا ولي سي أين أرنتنا وكلا أين أدعن سي هوين لقبه أين أقور سنين ركلا أين أقور سنين سي قبل لو أقادو رحم كذا يعلوش يدو ما dadkii la guursan karayba oo maran yahay mise ma marno. faham aad u fara badan baa ku jira oo hadda khaladka ugu weyn oo hadda arintan ay la khaldantay ay qayb ay ka tahay waligu marka waa muhiim. ninka wax guursan haya darsiga labaad ee ku xiga waxa weeye hatta haday gabadhu ninka been u sheegto oo ay dhahdo way dhacdaa marar badan gabadh cidda ku jirta oo dhahda cidda kuma jiro wayna soo martaa oo ay gabadhu dhahdo waa hore la ifuray hadda mar dhow baa la furay oo waxa laga yaabaa hal dhiig inay tirsatay. marar badan culimada su'aalaha la weydiiyay kamid tahay hatta haday gabadhu dhacdo inay degdegto hadda waa gabadhan la qabin baa ka hadlayay ninka wax guursan haya darsiga labaad ee ku jira weey waxa la doonayaa war qofkan uu doonayo nolosha inuu la qaybsadaay horta qofkan muxuu yahay yaa yaqaan kaba soo qaad inay ku tiri gabar baan ahay waligay la ima guursanin waa inaad dhahdo war yaa yaqaan gabadhan yaa waligeeda ah yaa dadkeeda ah yaa saaxiibadeeda oo yaa dariskeeda ah oo yaa wax soo barteen oo yaa jaamacada iskala soo baxeen oo dugsi sare iyo dugsi dhexe yay daris ahaayeen yay aqoon yaa qaraabo ah umuraha noocaas oo dhan waa inuu ninku baadho waxa ninku waa inuu yaqaano gabadha uu guursan hayo dadkeeda waa inuu yaqaan markuu dadka waraysi u tago ayaa wax badan ayaa marka u soo baxaya. inta waxaad ku dartaa shay hadiiba shubha la geliyo oo hatta war la geliyo qofka muslimka waxa la doonayaa inuu markaaba baaro waayo laba arimood bay culimadu waxay dhahaan ka fiirsi badan bay u baahan yihiin waa mas'alatu dimaa wa mas'alatu al-furuj wa mas'alada dhiiga iyo mas'alada xubinka taranka. xubinka taranka wuxuu xalaal ku noqon hayo waa mas'alo aad loo adkeeyay oo in laga fiirsado mudan. dhiig in la daadiyana waa mas'alo u baahan sharcigu ma banaynaya dhiigana asaga in la daadiyo. waxaan ku soo aruurin hayaa oo ku soo gabagabaynayaa qaybta koobaad ilaahay ha laga cabsado subhanahu wa ta'ala oo khaasatan gabadha muslimada ah cara ayada haysa iyayna ku qaadin inay xuduudda gudubto wakadalika rag oo kale raguna allah ka baqeen oo gabadh muslimadoo la qabo
gabadha muslimadee la qabo xadgudubkeeda iska ilaali cuquubo adduunyo iyo cuquubo aakharo ayaa ka dhalan hadda maxaa yaala at-tawbatu nasuha at-tawbatu ila Allah ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allah war ilaahi Allah noqdo subhanahu wa ta'ala oo ilaahi dibha loogu laabto subhanahu wa ta'ala kelimadaasi social media masaladii u dambeysay waxaan u mahad celinayaa rag aad u farabadan oo arintaasi isku dhabar jabiya inay xaqiiqadeeda keenaan marka ugu dambeysana guul iyo gobonimo ka gaadhay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa as'alullaha jalla jalaaluhu ilaahay inuu naga wada toobad aqbalo zallaadkeedana ilaahay uu noo dhaafo subhanahu wa ta'ala akhtaada aan galayna إلهي سبحانه وتعالى إنه وناقي أجور أنه بدله إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.